kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotay meel kasta oo joogtaan baa soo dhawaada ayaan idin leenahay kuna soo dhawaada war degdeg ah oo ku saabsan xaaladda ra'iisul wasaarihii dalkaasi Itoobiya Abey Ahmed Ali oo warar kala duwan ama iskhilaafsan ay ka soo baxayaan saacadihii la soo dhaafay waxaa sii xoogaystay shakiga laga qabo xaaladda ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abey Ahmed Ali waxaana baraha bulshada lagu baahinayay jiritaanka xaalad qasan amaba xaalad caafimaad oo degdeg ah oo la soo diristay ra'iisul wasaare Abey Ahmed arintaasi waxa ka hadlay amaba beeniyay qaar kamid ah mas'uuliyiinta dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya balse waxa shakigaasi sii xoojinaya amaba cirka ku sii shareeray qaar kamid ah diblomaasiyiinta dalalka reer galbeedka oo iyagu soo qaatay cadeymo iyo waliba warar lagu kala soonaan karo oo ay ku muujinayaan in ra'iisul wasaarihii dalkaasi Itoobiya Abey Ahmed Ali loola cararay isbitaal ku yaala magaalada Roma amaba dhinaca iyo dalka Talyaaniga qaar kamid ah diblomaasiyiinta ayaa waxa ay sheegeen amaba ay soo qaadanayaan in diyaaradda nooca ambulance ah oo waliba diblomaasiga soo qaadanaya waa diblomaasi u dhashay dalkaasi Jarmalka oo lagu magacaabo Gerjon waxaana uu sheegay in diyaaradda nooca ambulance ah oo ay timid magaalada Addis Ababa taasi oo ka soo kicitintay dhinaca iyo magaalada Abu Dhabi ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta maalinnimadii shalay ahayd waxaana uu sheegay in uusan indhowaana arag duulimaadka noocaasi ah oo isagu imaanaya dalka Itoobiya kana imaanaya dhinaca Imaaraadka Carabta taasi oo sida uu ku doodayo ahayd flightki ugu horeeyay ama flightki koobaad noocaasi ah ee yimaada dalka Itoobiya kana yimaada dhinaca iyo dalka isutaga Imaaraadka Carabta shakigan cusub waxa ka hadlay taliyaha guud ee ciidanka ilaalada madaxtooyada dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ama taliyaha ciidanka ilaalada khaaska ah ee ra'iisul wasaare Abey Ahmed sidoo kalena mas'uuliyiin wasiir ah ayaa iyaguna ka hadlay balse waxaan ku sii soconaynaa dhinaca diblomaasiyiinta ee diblomaasigan ayaa isaga oo hadalkiisa amaba warkiisa sii wata waxa uu sheegay diyaaraddaasi lagu magacaabo D-CBMU oo iyadu maxaan ku idhaahdaa to diyaarad ambulance ah amaba diyaaradda caafimaadka amaba xaaladaha degdega ah ee dhinaca caafimaadka in maaragtay to ay timid magaalada Addis Ababa taasi oo markii dambana u dushay dhinaca iyo dalalka Yurub waxaase sidoo kale isaguna ka hadlay oo isaguna arintani ka hadlay diblomaasi kale oo reer galbeeda kaasi oo isaguna dhankiisa sheegay in ra'iisul wasaare Abey Ahmed Ali loo duuliyay dhinaca iyo Yurub ayna u duulisay diyaaradda laga leeyahay dalkaasi Imaaraadka Carabta oo diyaaradaha khaaska ah ee caafimaadka ah amaba maaragtay to xaaladaha caafimaad ee degdega ah loogu talagalay in ay dadka maaragtay u qaadaan mas'uuliyiinta waxaana loo qaaday dhinaca iyo dalka Talyaaniga sida ay sheegeen ila uu soo xigtay diblomaasigaasi sida ay dooniba ha noqotee ra'iisul wasaare Abey Ahmed ayaa sida horay aan u baahinay waxa uu maqnaa in muddo aba isaga oo xaaladiisa siyaabo kala duwan looga hadlay dadka ay soo xiganayaan amaba sida diblomaasigan uu sheegay waxa laga shaki qabaa amaba jira cabsi ah in la suneeyay ra'iisul wasaare Abey Ahmed amaba la toogtay oo dhaawac uu soo gaaray sida ay doonayaan ha noqotee arintaasi xaqiiqo rasmi ah ilaa iyo haatan looma hayo haddaba ra'iisul wasaare Abey Ahmed oo isagu muddo bil iyo 4 cisho ah aan wax war laga haynin ama meel uu jaan iyo cirib dhigay aan laga warqabin ayaa sidoo kale waxa ka hadlay oo warkaasi beeniyay xubno ka tirsan dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya gaar ahaan taliyaha khaaska ah ama taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada oo isagu sheegay in warkaasi aanu waxba ka jirin shabakada wararka ee ZH oo iyadu waraysi la yeelatay taliyaha ciidanka ilaalada khaaska ah ee ra'iisul wasaare Abey Ahmed General Burhanu Bakale
ayaa waxa uu sheegay in wararka baraha bulshada la wareejinayo ee in uu dhaawac soo gaadhay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isla markaana dhakhtar uu ku jiro amaba dhakhtar loo qaaday aanay sal iyo raad toona lahayn balse arrintaasi ayaanay jirin xaqiiqo rasmi ah oo soo qaatay dhinaca kale waxa iyaguna la sheegay amaba la filayaa saacadaha ama daqiiqadaha inagu soo foolle in ay ka hadlaan xaaladda dalka Itoobiya wasiiradda amniga ee dalkaasi Itoobiya mufriyaad kaamil taasi oo war goordhaweyd lagu baahiyay qaar ka mid ah shabakadaha taageera dawladda iyaduna ka hadlaysa amaba ka hadli doonta xaaladda guud ee dalka Itoobiya inaysan wax dhibaato ah jirin dadkuna ay isdajiyaan sidoo kalena ay xaaladdu caadi tahay ma aanay soo hadal qaadin ama ma soo hadal qaadayso qorshuhu sida uu yahay يعني gabadhu waa ay hadashay balse weli si rasmi ah warbaahinta looguma soo gudbinin balse waxa ay sheegtay in xaaladdu ay degan tahay wax dhibana aysan ka jirin dalka Itoobiya balse ma aanay soo hadal qaadin xaaladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa si guud ay uga hadashay xaaladda guud ee amniga dalka Itoobiya iyo in aanay jirin wax dhib ah sidoo kalena laga digtoonaado wararka ku tiri kuteenta ah ee lagu baahinayo baraha ama shabakadaha kala duwan gaar ahaan social mediaha kuwaasi oo iyagu saacadihii la soo dhaafay si isdaba jooga u baahinayay amaba loogu sheegayay xaaladda ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo la sheegay in haatan aan laga warhaynin si rasmi ah waxa uu ku sugan yahay marka xaqiiqda laga hadlana muddo 34 maalmood ka badan ayaa jaan iyo cirib meel u dhigay aan laga warhaynin ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaana horaantii bishan aan baahinay amaba shabakada wararku daljira TV amaba janaalka daljira TV uu baahiyay in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed aan la haynin meesha uu ku sugan yahay balse warar soo baxaya oo waliba mas'uuliyiin dawladeed aanu ka soo xignay ay sheegeen jiritaanka xanuun ra'iisul wasaaraha la soo darsay kaasi oo waliba laba ka mid ah dhakhaatiir ta dalkaasi Jarmalku ay ugu yimaadeen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya iyada oo markaasina la sheegay in xaaladiisu ayna ahayn mid daran balse uu ku jiro nasasho iyo la tacaalid dhinaca caafimaadka sida ay dooniba ha noqotee ee wararka haatan isa soo taraya oo kuwa si weyn loogu baahinayo baraha bulshada ayaa waxaa shakigeeda sii xoojinaya in ilaa iyo haatan aanay jirin ra'iisul wasaare Abiy Ahmed muuqaalkiisa amaba codkiisa oo la hayo taasi oo iyadu midda xaaladda uga sii daraysa sababta haddii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay xaqiiq tahay warka uu sheegayo taliyaha ciidamada ilaalada khaaska ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed generaalka lagu magacaabo General Burhanu Bakale maxaa uu u soo bixi waayay amaba uu isagu u hadli waayay inkastee oo taliyuhu aanu ka hadlin halka uu ku sugan yahay waqti xaadirkan iyo waliba xaaladiisa guud ayaa haddana shakiga ugu badani waxa uu noqonayaa mid isagu sii xoojinaya shakigii ay horay dadku u qabeen sida ay dooniba ha noqotee ra'iisul wasaarihii dalka Itoobiya ayaana muddo 32 maalmood xaaladiisa si rasmi ah looga warhaynin dawladda dalka Itoobiya taliyahani ayaa waxa uu noqonayaa mas'uulkii ugu sareeyay ee si rasmi ah u hadla waxaana waraysi la yeeshay shabakada ZH lagu magacaabo taasi oo uu sheegay in warkaasi aanu waxba ka jirin balse kama aanu hadlin xaaladda rasmiga ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed halka uu ku sugan yahay waqti xaadirkan iyo waliba xaaladiisa guud ee caafimaadda sida ay tahay waxaana uu sheegay in wararka sheegaya in uu dhaawacmay amaba uu dhaawac soo gaaray ay tahay mid ku tiri kuteen oo aanay waxba ka jirin siday dooniba ha noqotee generaalkani hadalkiisa ayaa waxa uu noqonayaa hadalkii ugu miisaanka cuslaa ee ilaa iyo haatan soo baxay iyadoo oo la filayo sida aan haatan ba sheegnay in wasiirka nabadda iyo waliba mas'uuliyiin kale ay la hadlaan warbaahinta dawladda maadaama uu soo baxay khalkhal ballaaran oo waliba aad u mug weyn oo haatan isagu hadheeyay guud ahaanba xaaladda dalkaasi Itoobiya warbaahintuna ay haatan bilowday in ay ka hadasho xaaladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali taliyaha
ilaalada madaxtooyada dowladda federaalka ah ee dalka Ethiopia General Burhanu Bakare waa ninkan sawirkiisu idin muuqdo waxaana uu la hadlay shabakada wararka ee lagu magacaabo amaba magaceeda la yiraahdo ZZH amaba ZH kaasi oo waraysi uu siiyay ku beeniyay xaaladda dalkaasi ilaa iyo haatan jawaab rasmi ah dowladda federaalka ah ee dalka Ethiopia lagama helin tan iyo intii la waayay halka uu jaan iyo cirib dhigay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abey Ahmed Ali kaasi oo isaga haatan xaaladiisa laga dayrinayo aanay diblomaasiyiin kala duwan oo reer galbeedu sheegeen in loola cararay dhinaca iyo dalka Talyaaniga halkaasina ay ka qaaday gelinkii dambe ee maalinimadii shalay ahayd diyaarad khaas ah oo ah diyaaradda caafimaadda taasi oo sida la sheegay ka soo kicitintay amaba looga soo diray dhinaca magaalada Abu Dhabi ee caasimadda isutaga Imaaraadka Carabta oo xiriir wanaagsan uu kala dhaxeeyay in dhawaalaba madaxda amaba ra'iisul wasaare Abey Ahmed Ali sida ay dooniba ha noqotee warkani ayaa waxa uu yahay war ilaa iyo haatan isa soo taraya mas'uulka ugu sareeya ee ka hadlayna waa taliyaha khaaska ah ee ciidanka ilaalada ra'iisul wasaare Abey Ahmed Ali oo ah ninka haatan idin muuqda General Burhanu Bakare oo isagu waraysi uu bixiyay siiyayna shabakada lagu magacaabo ZH ku sheegay in warka sheegaya in uu dhaawacmay ra'iisul wasaare Abey Ahmed uu yahay waxba kama jiraan balse kama aanu hadlin xaaladda guud ee ra'iisul wasaaraha iyo waliba meesha waqti xaadirkan uu ku sugan yahay soo dhawaada akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo waa galad xasan oo daaha gadaashiisa idin kala soo hadlaya waxaana aan jeclahay in aan idin dulmaro bal hadda mid iyo laba warbixinta ku saabsan xaaladda ra'iisul wasaare Abey Ahmed oo diblomaasiyiin reer galbeedu ay ka hadleen sidoo kalena taliyaha guud ee ciidanka ilaalada gaarka ah ee ra'iisul wasaare Abey Ahmed isaguna uu ka hadlay sidoo kalena daqiiqadaha ama daqiiqad kaste la filayo in wasiiradda nabadda dowladda federaalka ah ee dalka Ethiopia in ay la hadasho amaba ay la hadashay warbaahinta dowladda balse aan wali la soo gudbinin sida ay dooniba ha noqotee waxa ay sheegeen qaar kamida diblomaasiyiinta dalalka reer galbeedka in ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abey Ahmed Ali loola cararay dhinaca iyo dalka Talyaaniga loona qaaday ayna u qaaday diyaaradda laga leeyahay dalkaasi isutaga Imaaraadka Carabta taasi oo gelinkii dambe ee maalinimadii shalay ahayd xagga u dhufatay shakigu waxa uu yahay in la sumeeyay ra'iisul wasaare Abey Ahmed amaba la toogtay oo dhaawac halkaasi uu ka soo gaaray waa sida uu ku doodayo amaba uu qoray mid kamida diblomaasiyiinta dalalka reer galbeedka sidoo kale taliska ama taliyaha ciidanka ilaalada khaaska ah ee ra'iisul wasaare Abey Ahmed Ali ayaa isagu warkaasi beeniyay haddaan intaasi ku daro waxa aad warkani u baahinaya shabakadaha amaba baraha bulshada wararka ay inta badan ku qoraan activistayaasha iyo waliba saxafiyiinta kala duwan ee arrimaha dalkaasi Ethiopia danaya gaar ahaan kuwa qoomiyadda oromada ka soo jeeda iyo waliba ahmaarada kuwaasi oo iyagu ku doodaya in xaaladda ra'iisul wasaare Abey Ahmed haatan aysan caga adag ku taagnayn sida ay dooniba ha noqotee wixii ka soo kordha haddii Allah awoodda lihi ogolaado waxaad kala socon doontaan warbaahinta madaxa bannaan ee Daljire TV oo alaaba iyadu idin soo gudbisa wararka degdega ah ee ku saabsan guud ahaanba xaaladda dalka Ethiopia sidoo kale saaxiibada hawada nagala socda iyaga naftirkooda haddii ay noo soo gudbin karaan amaba wixii ay kala socdaan dib ayaa iyagana jeclahay amaba waa ay noo soo gudbin karaan inkasta oo dowladda dalkaasi Ethiopia caadadeedu ay tahay in aanay la wadaagin xogaha iyo xaqaa'iqa jira bulshada dalkaasi Ethiopia ilaa iyo inta ay mindi us ku tagayso sida ay dooniba ha noqotee waynu la socon doonaa kolba wixii ka soo kordha waa galad xasan oo idinku dhaafaya tan iyo inta aynu isugu imaanayno wararka iyo warbixinada dambe nabaday